bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada warka habeenimo ee xogta cayaaraha qodobada aynu idinkugu soo gudbin doono haddii ay yidhaahdo waxaa ka mid ah magaalada baku ee caasimadda dalka azerbaijaan oo caawa isku farisaari doonaan kooxaha chelsea iyo arsenal kulanka faynalka ah ee markaa yurub liigaha real madrid oo shaacisay xidiga eden hazard xilliga markaasi ay soo bandhigi doonto sidoo mayne oo niyajab ku riday jamaahiirta real madrid iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee caawa ayaa warkeena ku daawan doontaan balse haddii aad ku cusub tahay daawada janalkan subscribe noo saar aynu ku hormarnay caawa ayaa magaalada baku ee caasimadda dalka azerbaijaan waxaa ka dhacaya kulanka weyn ee finalka ee kooba yurub oo markaa isugu hor imaan doonaan arsenal iyo chelsea labada macalin ayaa ka hadlay Chelsea iyo Arsenal waxaana markaasi macalin walba uu aaminsan yahay inuu ku kalsoon yahay kooxdiisa oo markaa midba midka kale uu isleeyahay inuu koobka isagu garoonkiisa u hooyin doono inkastoo labada kooxood magaalada London ay ka wada dhisan yihiin shaaha macquulka ah labada kooxood ay ku soo kala gali karaan ayaa waxaa la leeyahay Chelsea hadii aynu ka hormarno Kebe ayaa goolhayaha u noqon doona Alonso iyo Christensen iyo Azpilicueta Luis dhinaca daafac Jorginho Pagli Kovacic ayaa qadka dhexe markaa iyaguna ay sida weyn loo macquul ay u tahay inay u maamulaan Eden Hazard Petro iyo Giroudna dhinaca weerarka ayaa leeyahay waa loo xisaari doonaa dhinaca Arsenal hadii aynu fiirino Petr Cech ayaa macquul ah iyo leeyahay in oo markaasi dhinaca goolaha uu ku soo bilowdo dhinaca daafacyadana waxa leeyahay Koscielny Mustafi iyo ciyaaryahanka Babst lagu magacaabo ayaa iyana dhinaca daafaca noqon doona Ozil iyo Traore ayaa dhinaca qadka dhexenaya markaa loo xisaari doonaa sidoo kale Aubameyang iyo Neles Kolasinac iyo ciyaaryahanka Xhaka iyo Lacazette ayaa ah ciyaartooyda sidoo kale macquulka ah in uu la soo shirtago macalinka kooxda Arsenal ciyaartan oo sida weyn loo wada sugayo ayaa waxay soo gali doontaa 4 saac habeenimo ama 10 habeenimo xilliga saacada geeska Afrikada bari marka ay saacadu tahay dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa waxay shaacisay xilliga Eden Hazard ay soo bandhigi doonto Eden Hazard oo la sheegay in 115 milyan inuu ugu wareegay kooxda Real Madrid ayaa waxa la leeyahay waxa macquul ah in Real Madrid markaasi ay soo bandhigto ciyaaryahankan xilli dhow wargeyska AS lagu magacaabo ayaa waxa uu daabacay xilligaas sida rasmiga kooxda Real ay u soo bandhigi doonto Eden Hazard waxaana la sheegay in 3 June markaasi la soo bandhigi doono oo maalinimada Isniinta macalinka ee kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa si weyn waxa uu bogaaday in markaa kooxda Real ay la soo wareegtay weeraryahan oo markaasi aad u wanaagsan oo reer Belgium ah Eden Hazard sida macalin Zu sheegay waxa sidoo kale la leeyahay madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa waxa uu markaasi ka go'an in mar uun dhameystiro heshiiska ciyaaryahan Eden Hazard uu markaa ku imaanayo kooxda kubadda cagta Real Madrid sidoo kale Sidoo Mayne ayaa waxa uu niyajab ku riday ciyaaryahanka jamaahiirta kooxda kubadda cagta Real Madrid Sidoo Mayne oo u dhashay dalka Senegal oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxa uu ka hadlay mustaqbalkiisa halka uu ku wajahayo isagoo sida weyn loo la xiriirinayay waqtiyadii ugu dambeeyay ee la soo dhaafay inuu markaa ku biirayo kooxda Real Madrid Mayne ayaa waxa uu xaqiijiyay inuu markaa ku faraxsan yahay inuu sii joogo garoonka Anfield oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ka dhisan tahay Mirror wargeyska ayaa waxa uu daabacay in markaasi Mayne uu ka hadlay mustaqbalkiisa kooxeed isagoo sheegay in meelna ugu socon kooxda Liverpool oo isagu hadda u ciyaaro waqtiyadii la soo dhaafay ayaa si weyn waxa loo la xiriirinayay kooxda kubadda cagta Real Madrid balse Mayne ayaa waxa uu sheegay inaanu meelna ugu socon garoonka Anfield markana waxyaabaha ugu waaweyn ee wargeysyada ay qoreen ayaanu aadaynaa
kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa waxay la soo wareegtay ciyaaryahanka daafaca ah ee kooxda kubadda cagta Sassuolo Demiral lagu magacaabo. Tutto Sport ayaan waxa ka qortay ciyaaryahankan ayaa 15 milyan waxaa markaa kooxda kubadda cagta Juventus ay kula soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Sassuolo oo isla Serie A dalkaasi Talyaaniga ka dhisan. waa ciyaaryahan da'yar oo wax badan u qaban doona ayaa lagu yeeray warbixinta, isagoo markaasi sidoo kale macquul ay tahay inuu boos joogta ka helo kooxda kubadda cagta Juventus oo daafacyadeeda qaarkood ay markaasi da'da ka daba timid, sida ciyaaryahanka Jilini lagu magacaabo oo daafacyada ugu fiican kooxda.